laakiin qabashada xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray gegada diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb waxaana musharaxa iyo wafdiga uu hogaaminayay ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo soo dhaweynta kadib wafdiga loo soo galbiyay gudaha magaalada musharaxa ayaa munaasabad lagu soo dhaweynayo oo lagu qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi ku dheeraaday ka hadlitaanka musharaxa ugu horeyn waxa munaasabada furay madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashi Farax Cali isagoona musharaxa ku soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb kuna amaanay inuu noqdo shaqsigii ugu horeeyay u taagan jagadan soo gaaray gobolada dhexe waxaana leenahay ma sugi karno inta aan madaxweyne ka noqotid hadda inaan loo halgashan rabnaa hadii ilaahay odayaasha iyo salaadiinta waxaan idinku baaqaynaa dhibaatada midnimo la'aanta jirta iyo khilaafaadka jira iyo isbaarada siyaasadeed ee halkaan la dhigtay aad ogsoon tihiin oo dadkii walaalaha lagu kala hayo inaad howl gashaan ayaan idinku codsanaynaa idinka anoo ku hadlahayo madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaan mar labaad idin soo dhaweynayaa sidoo kale qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo waxgaradka caanka ka ah deegaanadan oo munaasabadan khudbado kala duwan ka jeediyay ayaa ku amaanay musharaxa soo gaaritaankiisa deegaanadan iyagoona sidoo kale ugu baaqay inuu wax badan ka qabto xaaladaha ka jira deegaanadan toorna tiree daldiyeesha duwan milla saydisha la dhihi kara waxay noo tahay maalin farxada oo la mid ah Soomaaliyo dagaala gumaysi ku batay dib kasta soo martay maalintii Muqdisho loo bilaabay loo magacaabay caasimada Soomaaliya oo kale maanta noo tahay imaashaha aad gobolka Dhuusamareeb timaadeen in maaragtay aan tiraahdaan maanta imaashaha musharaxa madaxweynuhu ma aha nin oo isle meesha inta soo aragto oo dadka jooga istusto markaas aad maaragtay dan ku gaartid gaar maahan waa nin doonaya dadkan danta ay leeyihiin inuu inta marada u duubto meeshii ilaahay la rabana gaarsiiyo dadaalkiisana uu dhibaatadii waaye soo martay inay uga badbaadaan mas'uuliyadiisa uu guntaday adinkuna inaad sidaas ku taageertaan una ogaataan kuna garab istaagtaan aad ka rajaynaya مرشح عبد الرحمن عبد الشكور سودو سيدي صاحبك الربا بوشي شلا مرشح أحدي ما أنتو اثنين مدحوين ugu dambeyn musharaxa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo munaasabada soo xiray ayaa ka waramay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka qabto dalka iyo ahmiyadda ay u leedahay in maanta uu soo gaaro xarunta gobolka Galgaduud meesha kaliya si xaraga leh oo xornimo leh oo dadnimo leh oo karti leh shabaab looga dagaalamay dhulkan looga xoreeyay waa deegaankan asaga ah marka su'aasha waxay tahay warayada taas la og yahay maxaa hortaagan in dadkan ay taageero helaan inay deegaanadan soo dhaweyn helaan in ay helaan kaalmadii ama horumarkii ay mudnaayeen su'aashaas waa su'aal aad u weyn runtii waa su'aal in la isweydiiyo u baahan laakiin su'aal jawaabteeda ay siyaasad tahay waxa aan rabno inaan ka shaqeynano waa siyaasadii oo aan dadkan ku metelno oo aan deegaankan ku metelno oo meesha ugu sareysa aan ku metelno Cabdullaahi Warsamo Rooble Som News TV Dhuusamareeb